daawade halkan waa M252 kusoo dhow muuqaal kale sidaad gacanteeda u jeedaba waxaan gacanta ku hayaa mid ka mid ah taleefanadii ugu dambeeyay ka yimid dhanka Samsung gaar ahaan bishii tagtay ee Maarso 2023 telefoonkan waa Samsung Galaxy A34 5G waa mid ka mid ah taleefanada qiimo dhaxaadka ah tayadooduna aad ka wanaagsan ee ka yimid dhanka Samsung sanadkan 2023 si aad wax badan uga ogaato ila soco ila dhamayso muuqaalkan ilana gaar ilaa aan kaaga gacan hatinayo aan ku bilaabay anigoo hadeerba kartoonka ka furay telefoonkan A34 5G sidaad magaciisa ka dareemi kartaba 5G ayuu leeyahay 4G iyo kuwii ka dambeeyay dabcan uu leeyahay marka aad telefoonkan gacanta ku qabato waxaad dareemaysaa in uu ka yaratay wanaagsan yahay taleefanadii dambe ee Samsung soo saari jirtay gaar ahaan kuwa qaybta hoose ku jira ama kuwa raqiiska ahba sababtoo ah kaamiradihiisa qaybta dambe waa dareemi kartaa waxa uu uga qaab eg yahay ama uu u qaab eg yahay taleefanada waaweyn ay Samsung soo saari jirtay sida Samsung S21 iyo 22 oo kale sababtoo kaamiradihiisuna wax yar ay waaweyn yihiin midabkiisa ama dhabarkiisa dambana waa uu siman yahay xaggan waxa uu ka samaysan yahay plastic iyo wareeganba laakiin halkan wuxuu ka samaysan yahay dhalo adag oo Gorilla Glass ah dabcan halka mid ku xun yahay waxay tahay wax yar waxa laga yaabaa fingerprintigaaga ama farahaaga inay ku sawirmaan haddii aad gacanta ugu qabato dabcan taasna waxaad ku xallin kartaa aan isleeyahay cover inaad geliso telefoonkan laba sim card wuu ku yimaadaa hal sim card wuu ku yimaadaa laakiin tay ahaan marka muuqaalkiisa koraad aragto in uu xoogaa yaratay fiican yahay waa dareemaysaa xoogaana culays ayuu leeyahay telefoonkan marka aad gacantaada ku qabato waa dareemaysaa inuu telefoon weyn yahay cabirkiisu waa 6.6 inch oo gacantaada uu buuxin karaa haddii sida taydo kale u weyn tahayna waaba ay ku fiican tahayba kaamiradihiisa midna waa 48 megapixel midna waa 8 megapixel midna waa 5 megapixel ama 5 megapixel dabcan kaamiradahan dambe muuqaal ahaan waxay duubi karaan 4K 30 frame per second sidoo kale kaamiradan qaybta hore waa 13 frame per second oo aperture-keedu uu yahay f2.2 sidoo kale isagana waxa uu duubi karaa ama wajiga hore waxa uu ka duubi karaa video 4K ah oo 30 frame per second ah si la mid ah kaamirooyinka dambe oo kale xagga adkeysiga biyaha iyo boorka markii la fiiriyana 1 mitir ayuu u dulqaadan karaa ilaa iyo 30 daqiiqo in aysan biyo gelin dabcan qaybta simka xitaa marka aad soo bixiso waa dareemaysaa oo waxa ku wareegsan cinjir yar ama plastic yar oo ka hortagaya qaybta simka inuu biyaha galo maadaama qaybta inta badan la furo uu yahay telefoonkan inta kale lama furaba shaashadiisu tay ahaan way fiican tahay waxay ka samaysan tahay teknolojiyada loo yaqaan Super AMOLED refresh rate-kooduna waa 120 Hz 120 Hz dabcan waa smooth oo markaad isticmaalayso kama dareemaysid in uu telefoonka gogo'ayo iyo in kale xagga operating systemka wuxuu ku yimaadaa Android-kii ugu dambeeyay oo ah 13 iyo UI version-kii ugu dambeeyay oo ah 5.1 kaydkiisa waxa uu ka bilowdaaba 128GB ilaa iyo 256GB ayuuna sii socdaa dabcan RAM-kiisu marna 6 ayuu noqdaa marna 8 ayuu noqdaa laakiin 128 marka uu yahay kaliya ayuu 6 noqon karaa mar hadduu ka sare maro 8GB ayuu isku bedelayaa kaydka baterigiisa waa 5000 mAh ilaa 25 watt oo fast charge ayuuna qaadan karaa wireless charging ma lahan laakiin sidaan ognahayna wax jaajar lama socdo taleefanadii ugu dambeeyay oo idilna sidaas ay ku wada heshiyeen shirkadaha waaweyn yaan ka ilaawinay telefoonkan waxa uu leeyahay fingerprint oo qaybta hoose ayaad fartaada ama suulkaaga ku furan kartaa wuuna degdeg badan yahay dabcan oo tijaabooyin fiican ayaan ku sameeyay haddii aad rabto inaad wax ka ogaato cod dheerida telefoonkan uu leeyahay ama samicadiisa heerka taya ay la eg tahay dabcan inaan ku maqashiimeeyahay si kale meesha ugu dambeysa hadeer ayuu joogaa dabcan codkiisu bass fiican ayuu leeyahay waa cod nadiif ah qiimaha telefoonkan A34 5G waa $390 marka uu kaydkiisu yahay 128GB RAM-kiisuna uu yahay 6GB qiimaha telefoonkan Samsung Galaxy A34 5G wuxuu ka bilowdaa $390 marka uu kaydkiisu yahay 128GB RAM-kiisuna uu yahay 6GB haddii dabcan inta uu ka kordhana qiimaha waa uu kordhayaa
waxaad ka dalban kartaa shirkadda Halel Commodities oo ah wakiilka saxda ah ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya. Waxaad booqan kartaa mid ka mid ah xarumahooda oo xarunta ugu weyn waxay ku taallaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyntii gabagabadii muuqaalkan sidaad u aragtaa telefoonkan A34 5G aan xogtiisa kugu sheegay muuqaalka anigoo kaa mahad celinaa waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayn asxaabta M252 maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto dabcan boqolaal kun oo qof oo kaa soo horreysay ay ku soo dhaweynaysaa anigana ku soo dhaweynayaa inta laga gaariyo muuqaalka xiiba idankii nabadgelyo